نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انت أسكدب لما أنتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامت أسكدب الله سبحانه وتعالى أيامكم مهدنا قينا مهدنا لكوبي كريم سيدي نعموين كيسان لو كوبي كريم سبحانه وتعالى. waxaan kaloo ku mahadnaqayaa culimada iyo ducaada iyo jaaliyada Soomaaliya soo qaban qaabiyay kulankan asaga ah iyo mu'tamarkan. Allah subhanahu wa ta'ala ka dhigo mu'tamarkii lagu liibaani lahaa oo lagu aflixi lahaa. intaas oo dhan kadib sala socotaan mu'tamarkan cinwaankiisa waxa weeyaan ama tiitalkiisa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr la doono diinta ayuu fahamsiiyaa. maxaa yeelay diintu fahamka diintu waxa weeyaan waa xalka mushkiladaha oo dhan weey. mawduuceena ah sida ummadda muslimka ku soo ceshan karto makaanadeeda iyo darajada ay maartay mudnayd. runtii mawduuc ballaaran weeye. waxaa la oran karaa waa mawduucayaasha oo dhan ay ku wareeganayaan. in mawduucaas la isweydiiyo waa shay muhiim ah oo qofku uu ka murgo mushkiladda muslimiinta guud ahaan ama midda Soomaaliyeed gaar ahaan, in laga murgo oo laga fakaro oo qalbigaaga ay culays ku hayso wax fiican weeye ee ceeb ma aha. maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wasay lahaa man lam yahtama bi umur al-muslimin falaysa minhum. qofkii muslimiinta umuurahooda aan ka murgayn, aan ka fakaraynin, qofkaas ka mid ma aha. marka in muslimiinta arrimahooda aad ka fakartid oo maaragtay ay qalbigaaga ku soo noqnoqdaan oo dhibaatada jirta ay maxaanku culays ku haysa, arrinkaasu waa dareen fiican weey. laakiin waxa loo baahan yahay mushkiladda haddii la dareemo, dareenka mushkiladda badanaa dadku waa ka wada siman yihiin, laakiin sida looga bixi lahaa baa marka qaarkood qofka ka khaldamaysa. marka si looga bixi lahaana cilmi bay u baahan tahay. yani cilmigana dadkiisa in la weydiiyo oo laga faa'iideysto ayaa diinteenu inoo jidaysay. Allah subhanahu wa ta'ala siga yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. haddaynan garanaynin dadka cilmiga u la weydiiya wax kasta marka dadka yaqaan haday diin tahay, haday umuuro kala tahay, gaar ahaan umuuraha yani culays kale oo la oran karo umuuraha masiiriga ah oo ummadda aayaheeda iyo mustaqbalkeeda taabanaya. oo arrimaha loo baahan yahay in talada la badiyo oo su'aasha la badiyo oo baaritaanka iyo maaragtay tashiga la badiyo u baahan yahay. arrin dad yar ay la boodi karaan ama koox yari ay ka talin karto ma ay aha. waxaana ka mid ah diinteena islaamka waxayna barayso arrimaha muhiimka ah in dadka xilkaska ah ama muslimiinta umuurahooda iyo cilmigooda iyo maaragtay aan ka mas'uulka ah la weydiiyo. Allah wuxuu leeyahay wa idha jaa'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه أهل سود الريو أهل كاسي دباتو موجنايا أما علس بوت المام هيا أما وحكلا أو محنك هناك بوت المام ماذا ينقطبع ذلك أن في عنين أما منافقين تأهان جري أرنك النوع عاسها ويفذين هيا ذلك بيكون حباهين هيا ساسا الليلي ساسا النقطي ساسا عندونتا وحاسم مقشي بآخرين هيا هذه مركة أي آموس الهايين والنبي صلى الله عليه وسلم أي علين لهايين أما ذلك أولو الأمر ووحاس أي خصيصه وما ملك هذا له أما علمي هذا هيا لو علين لها ولا فهم لها وحان بوس كذا لدتشين لها تلابد أي مدنيهنا ولا مرسين لها لكن هذه أرنكي لا محن كورا سوق اللجو تورا أو أندنا منين لوجيه إن كتليان أرنكي وهلا هيا مركا إن مرجع على فهمه أو أرنكا ماشي لو علين يلا قرتا حلقة قيبته ما رجع كم ذويه أما حلقة تلابد كذا وحويه مشكلتنا هي استهرت ماشي لا آذينه يجدك أن ويدينه هي حلقة ماشي اللي قد دونه إلا قرته أما دان سود ويه إلا فهمه مرجع وحلو يقان ولا مارمان ومدة مسلم كجودهان قار أهان الصومالي ذا وحلو يقان مرجعوا وكل سيح ماشي اللون نقنايو عدة ثلاثة إسكاله هديك آخر دنتا هاي دبا الله كل ميسا مدة اللي بعضو حاوية ومدة مسلم كأمانت اللي بعطيسان وأمد شرته وقت دار صومرتي كن يشم بقول سنة بيكون لويهين هذا أمد مسلم كأجريتان كيدو مرك أمد أنت باب أصنتها هاي ووحير مرك الله إيجو أنت أي وناك سنيد أما أي عز أي هيستي أو أي شرف لهيد أما كون كان أي محانك كتلين ليسي وأود أي موقتي أمد مسلم كأكون سنة كبضا أي عالم كان كتلين ليسي وأودوا ذي عزقوا ذي عدالة واحتركوا ذا الأرك مركو مضى واحتماركتي مدة صدر تلين يسي وكون كان صامرتي ومسلم يا قال بإسلاق رسنية هي ومضى سيدي لقصة صاري وأودوا كهش لفتة إلا الدراسية أي لو بهنيه تاسو حكى فلان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أمضى صاري وأمدان تربييي أو تبابري أو أصغوا كليجيس دعوة بالله إلى وجارسيهر والدولة يمام الوصمية وضد النبي قال عمر صلى الله عليه وسلم إنه أمدان صاره ووضد الله مارمان إن ما أنت الله نقضه ودب له إيجو أو أنقرنه ترى محارنا هاللابي عزي بان لهين دل بان نقول عي أود بان لهين ضعف بان نقول عي والله مدرسنا تفرارق بايمد حاجة وحكي مالين جوابته وحكوا عي حقا أي كي مالين أذيك أيها صفوينك يتلمامه أتكون مضنايد وناجع أذيك أكتجي مركز سؤال شاء waxaan ugu dhacay xagee bay nooga yimaadeen xagee baa nala ka galay su'aasha noocaasa horay baa la isku weydiiyay oo saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii Uhud ayay is weydiiyeen markii dibku uu dhacay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam la dhaawacay oo 7 kamid ah saxaabadiisii meesha maxaan ku oraa la dilay oo ay ku dhinteen ayaa la is weydiiyay saxaabada is weydiiyeen waxaan maxay ku dhaceen bay isiraaheen إلهي وحيره قل هو من عند أنفسكم حقين أيك يمد أيها لو جوابي أيضا أي شرته إن ماشى قال أي صور أرتي أي قريش أي تمد أو إن من هليه ماشى أي هلان أو خداع عسكري الدجيي أو خالد بن الوليد ومحان كراد أدى ذالي أيضا أي شرته وحي ماشى كرد عنه قريش لو مطيرين يعني تبدأ قال لو مطيرين وحلو سو كوبي قل هو من عند أنفسكم مركمنتك لو حوية وإنا فهمنا وحن نقول دعي ماشي لفت ذا لو تيرين أيو يعد أيدا لصار لفت هذا إنه يخردنا تماه وإياها نوحى بضن هذه المسلمين تقولها لقاها الله أيو أما لقاها الله ما ركتي
midda Soomaaliyeed in eedda la saaro meelo kale ayaa badan ama Mareykan baa la saaraya hadday caam tahay iyo wax la mida iyo gaalada adduunka la saaraya ama UN ta la saaraya hadday tahay Soomaalina dawlado kale iyo waxa noocaas la sheegaya badana annagu dhibkeena ama annaga kaalinta aan ku leenahay mushkiladeena ma aan sheegno oo badana meelo kale ayaa loo tiiriyayo culayska la saara marka midda lafteeda waa khalad jira oo waxa dhacay iyo cidda samaysay iyo kaalinta sida loo kala leeyahay inay khaldanaato ma ahane waa inay saxnaataa oo la fahmaa mushkiladda annaga xaggeena ka socota xalkuna annaga xaggeena ayuu marka uu ka imaanaya marka dareenka ama fasiraadda ah waxa muslimiinta guud ahaan haysta ama Soomaalida gaar ahaan haysta meelo kale ka imaanayaan ama ka socdaan tafsiirka noocaas tafsiir sax ma ah hadduu sax ahaan lahaa saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadka adduunka soo maray ugu nadiifsanaa uguna wanaagsanaa ayaa la oran lahaa waxa meesha ka dhacay Quraysh baa samaysay waxa meesha ka dhacay Khalid bin Walid oo maaragtay dagaalka tabtiisa yaqaanaha sameeyay baa la oran lahaa lama oranin waxa la idinka ayaa sameeyay xageena ka socota taas macnaheedu yahay macsida iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la caasiyo iyo wixii Ilaahay jideeyay in guusha lagu gaaro hadii la khilaafo hada guul la heli maayo wax kasta wada loo mar ay leeyihiin waxa sa ahaadaan wax diini ah ama ha ahaadaan wax dunyawi ah wada loo mar ay leeyihiin oo Ilaahay subhanahu u jideeyay qofkii wadada khilaafahi wuxuu u socday ma helahayo qofkii mesela maal raba xoolo raba caruur raba oo inuu wada maraa qofkii qofka duusan guursanin uusan guri asaasin uusan xaas yeelan inuu yiri caruur baan raba caruur ma timaado waa lagu la yaabaya marka maartay asaas kale waxa weeyaan guushuna dariiqo loo mar ay leedahay dadnimo gaar ayaa laga baahan yahay sifooyin iyo tilmaamooyin gaar ah ayaa guusha iyo wanaaga lagu helaa nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ummadan uu soo saaray oo ayadoo aan jirin uu sameeyay sida uu yeelay maxay ahayd midda lafteeda in la gartaa loo baahan yahay oo tilmaamihii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu nagu ogaa iyo wadadii uu noo tilmaamay iyo wixii ummadda uu fahamsiiyay in laga leexday baa muuqata ummadda aqeedada laga dhisay ummadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa la baray ummadda aakhira ayaa lagu xiray ummad qiimo leh oo kala taqaana waxa mudnaanta leh iyo waxa mudnaanta lahayn ummad kala fahamsan adduun iyo aakhiro teeba fiican ayaa la soo saaray ummad kala fahamsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala in asaga ridihiisa la raadiyo qiimaha ay leedahay ayaa la soo saaray ummad waxa la soo saaray waxa ay doonayaan ay tahay wajh Allah alla wajigiisa dad doonaya ayaa ku soo kordhay adduunka dadku inay xoolo raadiyaan ama magac raadiyaan ama mansib raadiyaan wax jiri jiray weey laakiin dad Ilaahay kaligiisa rabo subhanahu wa ta'ala oo Ilaahay ridihiisa raba oo ikhlaaska yaqaana dadkaas ummadeena uu soo saaray ayay ahaayeen markii ummadda aqeedada loo saxay acmaasheeda ayaa saxantay waxay sameynayaan baa saxantay waxa ay doonayaan ayaa saxantay markaas ay noloshii wanaagsanaatay dadku waa jireen carabtu waa dhoobnayd meel badan bay joogeen xoolo way haysteen laakiin awoodooda khalad bay isticmaali jireen way isku leyn jireen way isku baabi'in jireen nolol ma jirin laakiin markii aqeedada la saxay oo acmaashu ay saxantay dadkii qiimo yeesheen xoolahoodii waa wanaagsanaaday awoodoodii wanaagsanaatay maskaxdoodii waa meel fiican gashay muruqoodii ayaa laga faa'iideystay marka bani aadamku hadii aqeedada aan loo sixin oo amalka aan loo sixin wuxuu noqonayaa dad awoodooda si khaldan bay u isticmaalayaan marka ummadda in aqeedada laga saxo acmaasha laga saxo fakarka laga saxo waa wadadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu maray weeyaan markii meeshaas ay khaldanaatay oo ummadda muslimka aqeeda ahaan ama cibaada ahaan ama fakar ahaan ay ka tageen wixii lagu ogaa ay dhibaatada ay dhacday ummadda muslimka waxay ahayd ummad risaalo xambaarsan ama
ummad ujeeddo leh ayay ahayd oo wax doonaysa inay gaarto wax tiigsanaysa ayay ummaddaanu ahayd oo diin fidinaysa oo dadka diin gaarsiinaysa oo inay wax muujiso lagu talagalay maxaa yeelay risaalada loo soo dhiibay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu maaragtay ummadda soo gaarsiiyay waa risaalo in la muujiyo ay muuqato oo lagu camal falo loogu talagalay weey waxa muujinaya malaa'ig ma bani aadam baa muujinaya oo cilmigeeda muujinaya oo camalkeeda muujinaya oo soo bandhigaya marka xilka noocaas ah ayay ummadda islaamka ay dareensaneed hadda qof marka xil dareensan oo ma aragtay hawl sugayso qofkaasi caadi ma ahaanayo awood buu gelinayaa fakar buu gelinayaa waqtigiisu waardiyeysanaya uu dadaalaya markay ummaddu risaaladii ilowday oo waxa ay doonayaan ay soo koobnaatay waxa la tiigsanayaa ay iska yaraadeen oo nolosha adduunyo kaliya lagu soo koobnaaday oo risaalada in diinta la fahmo la iska dhaafay in cilmigeeda la barto la iska dhaafay in lagu camal falo la iska dhaafay in la fidiyo la iska dhaafay in la muujiyo la soo bandhigo xilkeeda la iloobay marka ummadii waa qiimo dhacaysa ummadii waqtigeeda say yeesho ma taqaan xoolaheeda say yeesho ma taqaano wixii hadda uu sheekhu sheegayay ayaa soo baxayo waqti meel la geeyay la yahay ayaa soo baxaya xoolo lagu cayaarayo ayaa soo baxaya oo la leeyahay nin maal qabeena oo muslim ah ayaa intaas oo malaayiin ah maaragtay xadiiqatu xayawaan meel maaragtay xayawaanka lagu daryeelo buu ku sadaqaystay ayaa leeyahay intaas oo malaayiin ah ama intaas oo xoolo ayuu kala baxay meel xooga oo ku raaxaysto oo maaragtay oo ku damaashado ayaa leeyahay waa xoolo meel u geeyo leeyahay maxaa yeelay qofkii fakarkiisa iyo aragtidiisa ayaa soo koobnaatay wuxuu haystaana way badan yihiin marka ummadda islaamka markay risaalada lumisay ama inay xil saaran yahay ilowday ayay kala daadatay marka awoodeediiba jirta ayaa luntay oo maanta muslimku ma aragtay tiri ahaan waa badan yihiin xoolo ahaan waa badan yihiin maalka ay haystaan aqoon ahaan ma liitaan laakiin haddana wixii nuxur ma laha maxaa yeelay risaalo iyo xil saaran iyo waxay tiigsanayaan ama mashruuc ay fulinayaan ummadii ma ay laha marka in ummaddu ay soo ceshato dareenka ah risaalo ayaan leenahay xil baana saaran malaayiinta caalamka jirta maantay oo diin la'aanta ah oo dhagaxa caabudahaya ama dabka caabudahaya ama waxba aan caabudaynin dadka maanta si la socotaan badankood maaragtay waa dad gaal ah oo aan diinba haysan weeye marka dadkaas oo dhan waxay sugayaan ummadda muslimka weeye dadka risaaladii ilaahay haya khabarkii xagga samada ka yimid dadka haya waa annaga warkii ilaahay ka yimid annaga hayno ummadda dadka lama hayaan marka waxa la sugahayo oo inay caalamku wax u sheegaan raba annaga weeye marka annagu meesha aan samayn lahayn intaan teeni meel dhiganay ayaan ummadaha kale oo yaaban baan ku daba faylnay dad iska yaaban oo nolosha fahmi waayay oo nolosha waxay tahay garan la oo markay isweydiiyeen in la iska cabo oo la iska cuno la iska dhinto ka badin waayay baa annageena ku daba faylaynaa marka waliba kuwoodii u liiliita baa daba galaynaa oo kuwa wax yaqaan wax barta la fiirin maaye kuwa maaragtay kubadda cayaara iyo kuwa heesa iyo kuwa meelahaas raamaha la iyo wax noocaas oo maala yacniga baa lagu daba faylaya xataa marka ummaddu marka ay risaalada ilowdo way qiimo dhacaysaa marka in risaaladii la soo celiyo oo dareenkii ahaa ummad waxaa tihiin ilaahi subxaanahu watacaala uu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billaah ummad dadka loo soo saaray ayaa tihiin marka ummadda dhammaanteed waa ummad rasuulo ah bimacnaa risaale xambaarsan yihiinoo dadka ayaa loo soo saaray dadka ayaa loo soo diray inay badbaadiyaan wax u sheegaan marka dareenka ah waa nala sugahayaa oo diintii baa na sugaysa dalkii baa na sugahaya ummaddaa na sugaysa dareenkaas inuu soo noqdo ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in
ummadda soo celinteeda waddada dheer ay qaadanayso in lagu sabro weeye in la degdega maaha maxaa yeelay waxa maanta nagu dhacay waqti dheer bay soo socdeen maalinba meel bay soo hoyanaysay ilaa hadda meeshii waagu lagu bariyey in marka waxaan laga baxaana waqti dheer ay u baahan tahay oo kii oo kale ah ama ku dhow marka ummadda in dib loo soo nooleeyo juhdi dheer oo waxbarasho leh oo dacwo leh oo wacyigelin leh bay u baahan tahay ama ha ahaato ummadda muslimka guud ahaan ama xataa Soomaali oo dad yar ah ayaa ilaa hadda isfahmi la oo ilaa hadda meel laga jira garan la garanaysid marka in ummadda ay soo noolaato waqti hal la siiyo maxaa yeelay ummadda soo noolashaheedu waa sida caruurta oo kale bani aadamku sida u kobcaan ayay ummaduna u kobacdaa yani cunugii caawa dhasha inuu wax fiican xataa cuno xataa cuntada ma uu qaadan karo naaska hooyadiis buu shaqahayaa ama uu nuugayaa intaas baa ku filan haddaa tiraa war u dhashay aan wadno aan makhaayad geyno oo bariisi bas aan ka buuxino soo ka dhiman maayo oo ku dhimanaya wixina waa cunto laakiin asagii baan maaragtay aan gaarsiisnayn heerkaas marka ummaddu saas oo kale ay maanta maraysaayo ummadda muslimka ahayd caruur bay naga noqotay aqligiiba caruuroobay maskaxdiiba caruurowday marka waa in la naas nuujiyo u baahan tahay in wax fudud la siiyo u baahan tahay in appetite-ka loo furay u baahan tahay loo kaadiyo laakiin haddii la boodid waana khasaaraysaa kharash baa ka baxaya dhiig baa ka baxaya dad baa ku baaba'aya ummaddiina waa ka dhimanaysaa marka ummadda lafteeda waxa ay qaadanayso waa in loo kaadiyo loo qiyaasa loo baahan yahay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam inuu ummaddan soo saaro waqti ay ku qaadatay waa loo sabray waxyaalo adag baa loo dulqaatay maxaa yeelay ummad baa soo baxaysay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam asagoo tukanaya oo kacbada ku ag tukanaya oo maka jooga oo sujuudsan sala socotaan ayaa dhabarkiisa mandheer baa la saaray ficilka noocaas ficil khatar buu ahaa maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo makhluuqaadka ilaahay ugu fadliga badan camalka la sameeyo midka u fiicanna ku jiro sujuud ah meesha adduunka ugu fiicanna joogo kacbada ilaahay ah ayaa korkiisa mandheer la saaray nin gaalaho kibray oo qooqay ayaa waxaa samaynaya ficilka noocaas hadduu maanta dhici lahaa ama wax la mid ah adduunkaa guban lahaa baa laga yaabaa ama meeshaba waa lagu kala guuri lahaa si Soomaalidu ay tiraa ninkii ficilkii buu sameeyey gaalka ahaa halkaasuu ka baxay waa iska tegey malag soo qabta looma dirin oo asagoo isku jabiya samada looma raficin dhulka lama go'in halkaasuu ka baxa maxaa yeelay waxa la wado iyo dacwada socota iyo barnaamijka socda baa waqti la siinaya ninka waxa sameeyay laftiisa inuu baro islaama laga yaabaa hada jaahil buu yahay waa gaal waxa ma oga dacwada ma fahamsana laakiin hadii waxaanu ay socdaan dad aad u fog baa soo dhawaanayo fahmi doona marka waxaan ka wadaa ficil noocaas oo kala ah oo laga yaabo in maartay wax kasta istaajin lahaa wax kasta burburin lahaa wax talaaba oo rado ficil kama dhicin meesha ay ahayd maxaa yeelay barnaamijka ayaa wuxuu yahay in dad la soo saaro oo ummadda la soo nooleeyo ayaa socda nabiga sallallahu alayhi wasallam saasuu maartay oo soo sabray dad buu soo saaray dadkii markii uu soo saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam waa tii loo haajiray madiina loo haajiray madiina markii loo haajiray oo dadkii soo haajireen qaarna ay deganaayeen oo ansaarta la oran jiray waxa madiina lagu helay madiina laguma duulin see loo helay madiina oo saldhigga muslimiinta noqotay oo magaalada sharafta noqotay sida loo helay maxay ahayd see loo soo hooyay guusha noocaasa dacwo lagu soo hooyay dadkii deganaa ayaa diinta maqlay diintii bay soo doonteen
diintii bay fahmeen markaasay magaaladoodii iyo xoolahoodii iyo naftoodiiba oggolaadeen walidaalika waxay yidhahdeen culummadu nebigu sal allahu alayh wasalam madiina wuxuu ku furtay qur'aan buu ku furtay bimacnaa dacwo iyo la hadal buu ku furtay marka madiina dowladdii ka istaagtay dowlad dagaal lagu keenay ma ahayn waa in la fahmaa dowlad dacwo lagu keenay ahayd dowlad lagu keenay hadal bay ahayd dad baa la kasbaday dadkii la kasbanahayey ayaa dal yeeshay marka dacwadii bilaabatay dadkii la helay dalkii ay keeneen intaas baa laga sameeyey dowlad saas bay ahayd marka haddii ummadda muslimka la raadinayo inay soo noqoto waxaa lagu helayaa dacwa lagu helayaa dadka wax loo sheego ayaa lagu helayaa maskaxdooda la bedelo ayaa lagu helayaa intiina maanta timid waxa meesha leedahay ku keenay dagaal ma aha booliis ma aha waa dacwo waa isfaham waa wax sheeg weeye waxa maanta aan haysanno oo wanaag ah oo xagga diinta ah oo intaasoo sano socday waxa lagu soo gaaray dacwa lagu soo gaaray marka waxa dhimana dacwa lagu heli doonaa insha Allah taala marka in wax u sheega la fududaysto oo dadka wax loo sheego la yaraysto cilmiga la akhrinayo la yaraysto oo la yiraahdo maxaa la hayaa arrinkaas waa khalad in dadka wax loo sheegaahay wixii dadka lagu helay oo ummadda lagu helay oo dowladda islaamka ahi ay ku bilaabatay weeyaan waxa lagu dhacay waxa u sababa annagoo isbedelnay ayaa u sababa isbedelkaas oo xagga caqiidada ahaan kara xagga fakarka ahaan kara xagga camalka ahaan kara xagga akhlaaqda ahaan kara ayaa keenaya annagoo qalbigeenna uu ku dhacay isbedel ku saabsan waxa la weynaynayo in la weyneeyo oo la tacdiimiyo horta maxaa naga mudan khalad baa naga galay saa la socotaan oo qofka Soomaaliga ahi ama qofka muslimka guud ahaan marka fiirisid waxa uu weynaynayo marka qaarkood adduunkiisa kowka ah maalkiisa ayaa mudnaanta koobaad leh ama mansibkiisa ama magaciisa ama hadduu xogaa isballaariyo qabiilkiisa marka qaarkood hadduu gaaro weeyaba marka qofku wax kale uu samaysto wax kale uu tacdiimiyo uu weyneeyo ayuu samaystay oo meeshii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisu mudnayd ayaa wax kala galeen qofkii muslimka ahaa waxa laga yaabaa in xalaasha iyo xaaraantii uusan kala jeclayn baa laga yaabaa iska fududaysanayo qofku inuu isleeyahay xoogaagaan qaado aakhiro iyo jannada iyo naartu ha kuu dambaysay ayaa laga yaabaa marka ummadda noocaasana ummad meel gaaraysa maaha marka caqiidada naga khaldantay fakarka naga khaldamay waxyaalahaas istabanbarin ay ku dhacday in dib loo saxo weeye oo wax kasta booskiisii waa in la dhigaa Allah wuxuu leeyahay inna Allaha laa yughayyiru ma biqawmin xataa yughayyiru ma bianfusihim Allah subxaanahu wa ta'aala ma uu bedelo wax dad ku sugan dad waxa ku sugan hadday nicmata laga qaadi maayo ilaa ayagu isbedelaan hadday dhibta laga qaadi maayo ilaa ayagu isbedelaan marka wixii nagu sugan oo wanaag ah in la waayo annaga keenayna waxa nagu sugan oo dhibaato ah inay bedelmaan annaga keeni karna marka waxa weeyaan annaga xalka qayb weyn baa ka nahay halkaasna qaybtiisu iyo maaragtay si loo kala qaadanayaa qof kasta qayb uu ka qaadan karaa waxa khalad ah fikradda ah mushkiladana dhacday dad kale ama gaalo ayaa ka mas'uul ah taawaan sheeg waxa kale oo khalad ah mushkiladana waxa ka mas'uul ah dawlad oo kale baa ka mas'uul ah oo dad gaar ah farta lagu fiiqayo oo qofkii Soomaaliga asaga uu isbari yeelahayo taasna waa khalad aan qofku waxaan qayb u ka yahay waxa laga yaabaa inaad ku hadashay kelimad baa laga yaabaa dib weyn geysatay waxa laga yaabaa qalbigaaga inay ku jiraan cudurro iyo amraad halis ah oo dhibaato keeni kara ayaa dhici karta marka fikradda ah in qofka Soomaaliga ay asagu isbari yeelo
ودad gaara uu tiigsanaya ama dad gaar uu eedeynaya ayana sax ma ah marka mushkiladda dhammaanteen qayb baan ka nahay halkana dhammaanteen qayb baan ka ahaan karnaa wanaaga aad samaynaysid ummaddu anfacahaya macsida aad samaynaysaa ummaddu waa dhibaysaa waa in la fahmaa qofka macsida samaynaya macsidaas dabcan asaga waa dhibaysaa ummaddana dhib bay ku tahay gaar ahaan macaasida la muujinayo oo bannaanka lala imaanayo oo tvda lagu duubahayo macaasida lala jahrayo oo dibadaha la keenayo oo dadku aysan qarsanaynin macaasida noocaas oo kale ah mustaqbalka ummadda halis bay ku tahay manay anfacayso marka macaasida la isku bahaysanayo oo dadku shay macsi ah ay isku bahaysanayaan waxyaalaha ummadda ka daahiya inay guusha hesho bay qayb ka tahay marka qof kastow macaasidaada ka istaag maxaa yeelay adna way ku anfacaysaa in laga istaagaa ummaddana culays bay maaragtay ay ka qaadaysaa midka aan tukanayn salaad la'aantiisu waana dhibaysaa ummadday dhibaysaa gabadhan xijaabnayn ummadda culays bay ku tahay ninka balwadda leh ummadda culays buu ku yahay ninka laaluushka qaadanaya ummadda culays buu ku yahay marka qof kasta dembigiisa iyo kaalinta uu kaga jiraahay horta waa inuu fahmaa uu ka toobad keenaa loo baahan yahay ummaddana uu ka qaado culayska marka xalku waa maaragtay waa mas-uuliyad weyn oo qof kasta uu qayb ku leeyahay uuna bilaabaa loo baahan yahay ayna kow ka tahay التوبة إلى الله الله سبحانه وتعالى الله توبة كينه توبة جماعية الله توبة كينه الله سبحانه وتعالى الله نقضه قفك بني آدمها أو حلوق جيستنأه حلوق جيستي أصنع لو هيده وعفس لقدر بقى لو بهاي الله سبحانه وتعالى دين تيسا أو لو قرقاره أو لموتشي أو تعظيمي لو بهاي الله عليه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ذلك المؤمنين تأهوا هذه الله سبحانه وتعالى أذو قرقارتان إلهي ويدين قرقاريا مرك قرقارك إلهي وأن هذين إنه وأن سوق إنه وباهدي سنغم موقته وحلوه إليه وحويان الله سبحانه وتعالى أو لو قرقاره ومعنى هذه إن إلهي دين تيس لو قرقاره wuxuu ilaahayna faray in la muujiyo la fartoomo oo la tacdiimiyo loo hogaansamo ayaa loo baahan yahay ilaahay wuxuu diiday inay qarsoomaan baa la rabaa waa inay qarsoomaan waa inaysan muuqan waa inaan la samayn haddii la samayn hayana waa inay liidataa la rabaa laakiin wuxuu ilaahay diiday haddii la ammaano wuxuu ilaahay xarimay haddii la jeclaysto wuxuu ilaahay yasay haddii la weyneeyo arrinkaas waa dagaal macnihiisu waa dagaal waxa dhacaysa maantay dadkii Soomaalida ahaa ee wax ilaahay xaqiisa aan qiimo ku lahayn in qiimo loo yeelo waa u maleynaysid Ilaahay subhanahu wa ta'ala in lagu dagaalamayo marka shayga xaraanta ahaa oo inaan la samayn loo baahnaa haddii la sameeyana inuu qarsoonaado oo qofka sameynaya uu la dhuunto oo asagoo maaragtay dareemaya loo baahnaa ayaa la macaynaya haddii macaasida la maceeyo la amaanana si ku socdo marka dambe gaalnimo isku bedelaysa walidaalika qofka caasiga ah in la buunbuuniyo maaha waa in loo naseexeeyaa waa inuu ilaahay ka baqaa waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xishoodaa waa inuu isfahmaa baa loo baahan yahay haddii qofka maaragtay macsida wada la buunbuuniyo diintu waa burburaysaa maanta waddamada ay joogtaan oo meesha ay maraya alla socotaan sidaan ma ahaan jirin waddamada saan ma ahaan jirin dumarkoodu saan ma ahaan jirin maanta ay yihiin waa la soo gaarsiiyey sida loo waday heerkay maanta marayaan baa la soo gaarsiiyey toob bay qaadan jireen dheer garat mara dheer bay qaadan jireen dumarkoodu saasay ahaan jireen
saan yaa gaarsiiyey dad xun baa horseeday dad xun baa la ammaanay annagana maanta dadkii xumaa in la ammaano ayaa nagu bilaabatay gabadha xijaabnayn aan ilaahay ka baqaynin oo heesaysa oo inay dhuumato loo baahnaa ayaa TV-ga la keenaya ayadoo qaawan oo heesaysa kulan baa la qabanaya waa la wareysanayaa heesaheeda goorta ay bilowday sida ma loola xiriiray qiimaha ay leedahay waa la buumbino qof miskiina oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala macsiis ku jirta oo in toobad keento loo baahnaa ayaa macsida lagu dhiirigelinaya dad baa soo wacaya oo oranaya heesaheedaan ka helnaa codkaadaan ka helnaa heese hebel noo saara ayaa la leeyahay soo garamaysid qof noocaas oo aan ku jira macsi ayaa waxaa la siinayaa title baa la siinayaa weyn oo la oranayo fanaanka qaranka baa la oranaya ama fanaanada qaranka baa la oranaya qofka noocaas oo kale in la yiraabay ahayd faasiqa qaranka ila sax taabir faasiqa qaranka haduu jiri karo qofka noocaas oo kale waa faasiqa qaranka weeyaan waa burburiyaha ummadda weeye maxaa yeelay allah khaaliqa subhanahu wa ta'ala oo naxariistiisa loo baahan yahay oo loo baahan gargaarkiisa loo baahan yahay qofka la dagaalamaya oo ilaahay macsidiisa adduunka la hor imaanaya qofkaasi in la taageero ma astaahilo hadduu asoo ilaahay la dagaalamayo hala aadan meel kale laakiin annaga duruuf ilaahay kula dagaalamana nama hortaalo marka waxaan ka wadaa ummadda muslimka ah inta dadka macsida ah ay taakulaynayso taageerayso ammaanaysaay guulma ay gaarayso marka waa in diinta loo gargaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragtay ahkaamtiisa in la tacdiimiyo ayaa laga maarmaan ah waxa loo baahan yahay in lagu sabro wadada ayada ah waxa weyn baan rabnaa inaan guul galnaan rabnaa inaan awood yeelanaan rabnaa inaan isku duubnaan rabnaa waa in la sabraa sabarku waxa aan kamid ah asabru ala taa'ati illah in taa'ada lagu sabra loo baahan yahay asabru an ma'siyati illah in macsiya laga sabra loo baahan laga adkaysto maanta waxa dhacay qofkii Soomaaliga ahaa haddii xoolaha loo sheego ama jaga loo sheego ama xoolo loo sheego qofku iska qaadanaya waa dhacaysa isagoo aan fiirinaynin waxaan dhibaato ma keenayaan marka in laga sabro waxyaalaha ummadda burburinaya oo laga istaagaa la rabaa oo dadka kale ku gacan haatinaya oo ummadaada baabi'inaya oo adiga ku siinaya manfaco shakhsi ah ku siinaya in la qaato ma waxyaalaha kaydka ah ama makriga ah oo dibadaha ka imaanaya waxay ku baaba'ayaan ay ku istaagayaan in laga hortago sabr iyo taqwa wa in tasbiru wa tattaqu billahi subhanahu wa ta'ala la yadurrukum kayduhum shay'an hadii la sabro oo ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqo kaydka iyo makrigu iska baaba'aya dad muslimiin ah nahay meel baan ku noolnahay adduunka maxaan ku qayb kamida ah duruuftu aan ugu adag tahay laakiin haddii aan isku sabarno oo ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqo dhibaatada iyo makrigu way iska yaraanaya waxaan ku soo khatimayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wadada uu soo maray uu ku soo saaray ummadda waa wada dheer oo iska dhib badan weeyaan oo dadaal u baahan haddii la dhaafi karo sallam isaga dhaafi lahaa isaga laga cafin lahaa isaga laga deyn lahaa lagama deynin waa la marsiiyey maxaa yeelay wada kale ma jirto la maraa marka in wadadii la maro baa maanta loo baahan yahay oo lagu sabro oo lagu adkaysto Allah subhanahu wa ta'ala wasay laha laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseeran nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu daydo waa shay laga maarmaan ah waxa looga dayanayaa salaada kaliya maaha soonkiisa kaliya maaha sunnadiisa muuqata kaliya maahane wadadii uu maray uu ummadda ku soo saaray uu dadkii diinta ku baray uu ummadda ku bedelay waa in la maraa waa qudwatun hasana waa in la qaadaa wadadaas meeshuu ka bilaabay ka bilow wuxuu u sabray u sabar suu dadka ula tacaamul waa shay laga maarmaan weey laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam
haddii salaada looga dayanayo iyo waxa la midka laakiin wadadii uu umad ku soo saaray la khilaafahayo hada marka la gaari maayo maaragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana wa dayasho wanaagsan oo dhan kasta ah hadii aqeedo tahay hadii cibaado tahay hadii tahay maamulka ummadda hadii tahay soo saarid ummadda la soo saaro waa shay laga maarmaana weey marka Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa inuu maaragtay maxaan ku raaa naga dhigo ummadii soo noolaata oo cizigeeda hesha oo dulliga aan ka baxda oo tafaaruqa ka baxda oo maxabada u noqota iyo midnimada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi